shir uga socday beelo ka mid ah beelaha degan gobolada Awdal Salal iyo Gabiley ee reer Nuur Galbeed oo loogu magac daray Cawaale oo muddo 5 maalmood ah ka socday deegaanada magaalo Qallooc ee degmada magaalo Cad ee gobolkani Awdal ayaa lagu soo gabagabeeyay deegaankaasi. shirkaasi ayaa waxaa gabagabadiisii ka soo qayb galay salaadiin siyaasiyiin aqoon-yahano cuqaal haween iyo qaybaha kale ee bulshada ee ka soo jeeda beelaha shirku uga socday deegaankaasi iyo beelaha reer Nuur Bari. shirkan Cawaale ee beelaha reer Nuur Galbeed uga socday Qallooc ayaa gabagabadii laga shaaciyay go'aamo ka soo baxay iyo hoggaan cusub oo ay beelahaasi doorteen. sidoo kale shirkan ayaa ku baaqay shir midnimo guud oo ay yeeshaan beelaha reer Nuur. ugu horeyntii ayaa waxaa ka hadlay shirkani mas'uuliyiintii shirka hagaysay gudoomiyaha qabanqaabada shirkani ahna mas'uuliyiintii hagaysay shirkani mudane Maxamed Xuseen Hoori waxaanu halkaasi ka akhriyay go'aanadii ka soo baxay shirkani. wixii shirka ka soo baxay oo qodobaysan ayaan iminka halkan idinku soo gudbinaya. waxaa ka soo baxay oo shirka in la dhisay golo dhexe oo ka kooban 25 xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameedyo, siyaasiyiin iyo aqoon-yahan. waxa kale oo shirka lagu dhisay guddi fulineed oo ka kooban 7 xubnood oo aan magacyadooda halkan idinka soo sheegi doono. waxaa gudoomiye beesha u dooratay Professor Maxamed Muuse Jibriil oo guddiga u noqonaya gudoomiye ku-xigeen Cabdiraxmaan Suleymaan Aw Xasan, xoghaye Maxamed Xuseen Xasan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka cusub ee ay doorteen beelahan deegaankaasi ku sidayay shirka loogu magac daray Cawaale mudane Professor Maxamed Xuseen Jibriil oo ay u doonteen hoggaanka dhaqanka ee beelahaasi reer Nuur Galbeed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay sida tan waxyaabaha hor yaala insha Allah. marka koowaad haddii aan ku horeeyo beeshatan ama beelahan reer Faarax Nuur ee xilka noo dhiibay waxa la naga filayo waxaan filayaa inaan ilaalino number 1 midnimadooda inaan ilaalino waana ballan qaadayna. beeshani waxay ku kala maqnayd muddo ka badan 70 sano inay wada bixiso magta. ilaahay waxa uu qadaray xalay in go'aan lagu gaadho in dib la isugu soo celiyo qaabka loo bixinayana dib loo falanqayn doono haddii la haydmo dadku si ay dad waxa weeye dhiig iyo dhaqan wadaaga ay u noqdaan oo shakhsi kaliya soo noqdaan goob qudasay wada wadaan. waxaan ka kaxayn kari weynay ummadda in loo soo celiyo magtii ay wada bixin jireen talay doonaan ba lahaadaan. waxa la naga filayaa number 2 horumarinta beeshatan annaga oo la kaashanayna ilaahay una fikirayna haddii aanu nahay guddida fulinta idinkuna aad tihiin gacmihii lagu fulinayay aad tihiin ayaa la naga rajaynayaa dhinacyada laga horumarinayaana ay yihiin 3 dhinac haddii la haydmo. dhinaca arrimaha bulshada oo waxyaabo badan soo koobsanaya, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda in laga horumariyo oo reerka hore loo dhaqaajiyo ayaa la naga filayaa iyadan haddii la haydmo. sidoo kale waxaa ka hadlay salaadiin siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha reer Nuur Bari oo gabagabadii shirkan Cawaale ka soo qayb galay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ku hantay wadankuna waxa ay kiisayla cilmi dheer saxeexay iyagugaas Nuur cilmi dheer waqtiga joogay cilmi dheer saxeexay marka ingiriisku markuu xorriyadda bixinayo documentkii buu eegayaa wuxuu leeyahay war maxaa naga dhaxeeyay. okay saxiixii gadabursiga marka yaala saxiix kale ma yaalo xorriyadii wuxuu ninka gadabursiga u dhiibaya. okay mudankii isna wuxuu siiyay prime ministerkiisi isna wuxuu yiri waxaan ku wareejiyay prime ministerkayga oo cigaala sidaas xorriyad lagu soo helay. tan aan maanta ka cabanayno marka waa waxaan inagu dhalinay inooma aqoonsanada nimanka kale Soomaaliyeed aan wada joognaa waxa iyagu dhashadeen iyo haystaan laakiin runtu waa sida taariikhduna waa sida
lagamana been sheegi karo ninkii sheegan waayse waa nasiibkiide beelaha Faarax Nuur waxaan rajaynayaa in sida ay yihiin loo fuliyo oo guddiga lala shaqeeyo oo aanu la shaqayn doono dhalinyarta haweenka bulshaweynta in la dhaqan geliyo ayaan ku dardaarmaynaa waxa kale oo aan soo jeedinaynaa ama soo jeedid ama go'aanada ka mid ahaa in la qabto shirweyne reer Nuur in la qabto kaasina waxa weeye waa arrin muqaddas ah oo loo baahan yahay weeyi dhinaca kale qaar ka mid ah qurbajooga beelaha ayaa iyaguna ka hadlay gabagabadii shirkan cawaale ee ka socday deegaanka Qalooc ee gobolkani Awdal maanta nasiib ay tahay halkan inaan ka hadlo shirkii cawaale ee midaynta reer Faarax Nuur waxa aad iyo aad iyadana iyagu wanaag iyo rayn iskuulkii aan ka baxay 1968 standard 4kii dugsigan magaala toosan loo bixiyay maanta ayaan ka baxay oo entrance baa loo oran jiray imtixaankii aan ka qalin jabiyay deetana dugsiga dhexe Boorama aan wareegay 43 sanadood ka bacdi ayaa noqonaysaa intaasi inaan halkii ku soo noqdo oo maanta maxaan dhacday iyadoo wax wanaagsan lagu hadal hayo midayntii reer Faarax Nuur lagu hadalayo ilaa iyo midaynta reer Nuur lagu hadal hayo sharaf iyo wanaag bay tahay waxaan ugu horeynba horta u soo jeedinayaa mahadnaq ilaahay baa horta mahadna leh dadkii shirkan soo qaban qaabiyay ay ugu horeyso guddiga ay ku xigaan haweenku ku xigaan salaadiinta iyo oqaasha dadweynaha iyo dadka reer magaala toosan ama reer magaala cod la oran jiray oo halkani maanta guul xaad leh ku gaadhay sharaf weyn bay wax kale uma baahnin yaa weelkuna de waxbuu keenaa war arrintaasi hadba waxaa maanta loo tirtirayaa waxaan ku mursadaynayaa waa waxaa soo socdee inagu intii tamartaynu tahay iyo intii taladeenu tahay iyo intii adduunkeennu yahay ugu dambeyntii shirkan ayaa waxaa soo xidhay suldaanka guud ee beelaha reer Nuur Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidan iyo halkoodii lagu soo celiyaa sidii loo wareejiyay madhadhaasi baa leeyahay waa la idinla day taana aan halkaa ku dhaafo ilaa shalay waxaan lahaa mashcaradiyey halkaan ka dhicin ciyaariyey halkaa ka dhicin murug iyo farxad wada jirta weeye waxaananu ku hadlaya murug iyo farxad wada jirtaan ku hadlaya waxa weeye arrimada waa la taataabtay halkanna ku dhammaan maayaan halkan kuma dhammaanayaan arrimadu waa laga arrinsan annuxurka u soo noqdo tiinna taa aad gaadheen dhabbadii baad cagta saarteen waxaanan iloobaynoon ka tegey qurbajoogga soo taageeray arrinka iyaan iyagana mahadnaqoodii ka tegey haddaasaan haleeshiiyey oo waxoogaa waan yar diiroonayaayoo inaan hadallada ka boodboodo waa laga yaabaa inuu soo dhoweeyana waan doonayaa waxa weeye dhabbadii baad cagta saarteen waxaa la qabtay qiimuhuu leeyahay iyo qaraduu leeyahay waad ogtihiin cishada midhaha la taabtaan mahadnaqayna cishada midhaha la taabto cishadaasuu hirgalay maanta maaha wuxuu hirgalay cishada midhihii loogu talagalay la taabto cishadaasaan ka hadli doonnaa kana mahadnaqi doonnaa dhabbadii baad cagta saarteen intaa dhabbadaan ka mahadnaqayna Qadar Maxamed Xasan Xidigta News magaalada Boorama